iyadoo khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland marmar ka dambeysay cirka isku shareeraysa ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo waxay qaadaysaa tallaabo degdeg ah taasoo ku aadan in deegaanada maamulka Jubbaland ay geyso ciidamo aad u far badan kuwaasoo qayb ka noqon doona ciidamada halkaasi ku sugan laba diyaarood oo ciidamo ah ayaa la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya goordhow ay ka dirayso gudaha magaalada caasimadda Muqdisho kuwaasoo ay ka degi doonaan gudaha degmada Galbahaare ee gobolka Sigido waxaana ciidamada sila tilmaamay in la geey doono gudaha degmada Balad Xaabo ee gobolka Sigido oo xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland lamuga talaabada xigta ay qaadayso maamulka Jubbaland taasoo ay ugu jawaabayso ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay geynayso gudaha degmada Galbahaare ee gobolka Sigido saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in ciidankaas si lagu xoojin doono ciidanka ku sugan gudaha degmada Balad Xaabo ee gobolka Sigido waxaana ciidanka dawladda Soomaaliya xilligan ay ku sugan yihiin duleedka magaalada Balad Xaabo gaar ahaan meel u dhow Mandheera waxaana ciidamadaasi wata taliyaha ciidanka nabad sugidda ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo dhawaan xilkaas loo magacaabay lamoga dhaqdhaqaaqyada xilligan ay wada dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland waxaana gabiyahanba jaray isgaarsiinta gudaha degmada Balad Xaabo wayn adag tahay in faahfaahin dheeraad ah laga helo xaaladda gudaha degmada Balad Xaabo ee gobolka Sigido oo xilligan dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland iyo waliba kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya siyaasiyiinta iyo waliba waxgaradka iyo waxay ka digayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku daadguranayso gobolka Sigido waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in gobolka Sigido ay ka hirgeliso nidaamka dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama xilligan gobolka Sigido uu ka jiro nidaamka maamulka Jubbaland waxaana wararka aan ka helino gudaha degmada Balad Xaabo ee gobolka Sigido ay waxay sheegayaan in ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland xilligan dhufayso weyn ay ka qoteen gudaha degmada Balad Xaabo waxaana laga cabsi qabaa in mar kale gudaha degmada Balad Xaabo ay isku farsaaraan ciidanka dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland laba diyaarood ayaa la sheegay inay goordhow ka bixi doonaan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho labadaas diyaarood ayaa la sheegay inay wadaan ciidamo tiro badan iyo waliba hubkooda waxaana ciidamadaasi la filayaa in laga dejiyo gudaha degmada Galbahaare ee gobolka Sigido dawladda federaalka Soomaaliya iyo xilligan waxay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaa gobolka Gado gaar ahaan degmooyinka Balad Xaabo iyo waliba Galbahaare ee gobolka Sigido lama oga halka ay saldhigi doonto khilaafkan iyo waliba dhaqdhaqaaqyada xilligan ka socda gobolka Sigido ee maamulka Jubbaland oo federaal baad noqon oo dawladda federaalka Soomaaliyeed baad noqon ciidankii saddex hay'adood baad noqon ama Jubbaland baad noqon meel Jubbaland jirtaad aad oo doolo ugu sokayso wax ka dhaxayna ma jiraan baar dheer wax Jubbaland la yiraahdo daraawiisho ka roondays islama joogeen arinta ayada la aqbali maayo inaan anaga marka beledka isaga tagno in ayaga isaga tagaan labadaas way cid gaar ah u joodnana ma jirto oo beegsanayno cid aan gaar oo la dirsanna ma jirto ammaanka iyo nidaamka aan ka shaqeynayno oo dawliga yaa waajib naga saaray intaas aan rabnaa inaan gudano توتا وحنو حيران إن دمانو أو نلدلو أو عدو وندلو عدو وكا وندلو أنا جر أندلو ما واحد كده هيجر ما قال نقدر دمتين تان ماشي أنجوج يا خرج هذا الدقمة كل انتهى قدام بي عجني الله ونحرسته يو عير عليه ورجع يا داو نجي نقار حمر نجي جيران قار مقالة يلا دي جودا سؤال ربنا من اللي وهله عيدا كوحان الله قالين إمام مدها على مدى الشباب أو عمامها قد جدودون ما يقولون عيدا كنك ممنوع واي عمامها قد جدودون علامة الشباب وهي خواريتا إسكال دقن كاسجا هلا جوج قفك كوفيها قات تدو قادنين مدحي سو بنانات